السلام عليكم أصحابتا كسر دوّا مركلة برامجنا عافماتك إن كجسوا قد بينو بوجينا بكانديق مجرعينا ولا تشريف عندك مقال كان وحنا وجهل الدونا شر عنك لجو مجعابو إسنادامسكا أما إن إسكابياسكا أما إسنادامسكا وح سببا عار لجو مجعابو سركبتس إسكابياس وح أجو بدن أوقفك إسكار كرنا وجر عن قيبها كلا دون جركا جارهان قيبها لابلابما أما وكدي دخفكو jircunkaasi qofka wuxuu ku saaidi karaa ama ku darsan karaa habeenkii marka uu dhiigiisu qaboobo waxa dhacda qofka qaba iskaabiyaska ama isnadaamiska in soo isxoqayo oo isku hilmaamo isxoqidaasi sida ragga oo kale xaniniyaha iyo qaybaha kale ay xoqaan isla markaana ayaga oo wadada maraya ay isku hilmaamaan isxoqidaas waxaana dhacaysa qofku inuu u bego intaas ama uu u sii baahdo xoqidaas oo isku hilmaamo sida uu xoqayo jirkana oo nabar ka dhigo caaradan waxa ay ku dhacdaa ama ay gashaa qaybaha sare ee oogada maqaarka kadibna halkaas ay ku tarantaa sidoo kale isnadaamiskaas ama iskaabiyaska waa wax la kala qaadi karo oo si fudud ku faafi kara waxaan la isku qaadsiin karaa close contact wax lagu magacaabo ama labada qofka qaba hadii uu la kulmo qof aan qabin cudurka si fudud ayuu ku qaadsiin karaa ama uu taabto sidoo kale wax lagu kala qaadi karaa dhar isla gashiga ama dhar wadaaga iyo sidoo kale qofka qaba asaga oo dhididaya inuu ku sintaacsado ama uu ku seexdo sariirta ama joodariga qofka aan qabin sidaas ayuu ugu baahi karaa qaybaha kala duwan ee dadka haddii aan ka hadalno daweynta isnadaamiska ama iskaabiyaska daweyntiisu waxay isugu jirtaa dawo afka laga qaato kuwa korka la marsado iyo creams ama bomatooyin oo qofku meelaha nabraha ah oo iska marin doono dawooyinka afka laga qaato waxa looga hortagi doona ama lagu yareyn doona caabuqa ka dhalan kara isxoqida tirada badan ee uu qofku isku sameeyo ama uu jirkiisa ku xoqo xilliga uu xanuunka uu qabo sidoo kale dawooyinka ugu muhiimsan waa kuwa korka laga marsado si dawada lagu magacaabo benzoyl benzoate dawadaas oo ah dawada ugu muhiimsan ee lagu la dagaalamo iskaabiyaska ama jircunka isnadaamiska sidoo kale waxa jira dawooyin creams ah oo loo qaato cudurkan si loo yareeyo dareenka faraha badan ee qofku uu dareemayo cuncunka jirka dawooyinkaas oo ah dawooyinka xasaasiyadda ama antihistamine lagu magacaabo wad maadsantiin